maasha Allah walaalay qaaliga maanta waxaa idin wadaa dhowr quraac oo kala nooc ah oo miisaanka aad ku dhimi kartid haddii miisaanka iska rididna miisaanka aad ku xakameyn kartid sidoo kalena caafimaad ku leh aan subaxina gaas ku kicinaynin iyo dhowr cabitaan oo ayagana subaxii intaadan cuntada cunin ka hor cabaysid iyo habeenkii marka aad seexanaysid insha Allah saad u jeedaan waxaa ku bilaabaneynaa kafee hadda subaxay ii tahay kafeegana cabaya aad waxa arto cabi kartaa laakiinse kafeega liinta lagu daray aad u jeclahay biyo kulul hadda ku daray iyo qaando yar oo kafee ah waaye kadibna waxaa ku darsanayaa liinta jeexeeda oo xoogaa yar ku darsanaa oo xoogaa iska badanaaday marka maasha Allah marka cabo kadibna dhowr saacadood waxaan sameysanaynaa quraacdeen insha Allah isla socod wanaagsan idin leeyahay waa kana diyaar u yahay haddana waxaan sameysanaynaa sida u jeedaan quraacdeeni meeshaan waxaa iigu jira jab tufaax ah soo hoolay waaye tufaaxa caadiga waa soo hoolay jabkan jabkiisa kala ama jeexan jeexiisa kala waaye meeshaan saa u jeedin nus bakeeri oo boorasha iigu jiro asagana sameysanayaa iyo bakeeri biyo asa aragtiin biyo cad waaye marka digsiga hadda waxaa kusoo shubanay bakeeriga biyaha kusoo darsaday waxaa kaloo ku shubtay nus bakeerigi oo boorashka aad iyo aad u fiican yahay subax quraac markaa ka dhigatid dheeriga ka dareemaysaa maalinkaagii oo dhan baahi ma kugu soo degdegayso haddana waxaa ku darsanay jeexii tufaaxa aan soo hoolnay tufaaxa uu fiican yahay maasha Allah macaan yar oo khafiif oo ku siinaa haddana waxaa kusoo darsanaa caano oo ka samaysan yahay boorash iyo almondi oo ka samaysan yahay caanahan marka caanaha hartaa ku darsan kartaa caanaha lo'da oo low fat ah ama caanaha qumbaha sooyaha midka rabtid waa ku darsan kartaa insha Allah haddii aa haysanin yogurt oo ku samaysan kartaa oo laakiinse faatkiisa uu oo yar yahay ama faatkiisa eber uu yahay marka waa kana walaalay qaaliga xoogaa yar markay soo kartay waa kasoo dejinay boorashka sidiisaba uma baahno karis badan marka wax yar u baahan yahay meeshaan saa u jeedin fruit qalalana igu jira babaay iyo canab iyo muxuu ahaay qumbe waxyaabahaas oo ka samaysan yahay wax yar malaba hadda kusoo darsaday malabka hadda jeclaan waxaa ku darsan kartaa serum waa ku darsan kartaa haddana u jeedin wax yar oo looski iyo wixii isku jirjiriya xoogaa korka ka soo darsaday moos qalalana ku jiro mooska caadiga ah daartid oo ku darsan kartaa kana haddana ku darsaday maasha Allah marka quraacdeeniina meeshaas ayay noogu dhamaatay saa u jeedaan waxaa ku cabayaa bakeeri caleentan maasha Allah aad iyo aad u fiican tahay ka faa'iideysta idin leeyahay waa kaas sinjibiil iyo qorfe iyo wixii ka samaysan tahay filfil waxyaabahaas ka samaysan tahay marka insha Allah idin ka faa'iideysta quraac walba waxaa ku cabayaa wax gooniya insha Allah haddana waxaa u gudgaleynaa quraacdeeni kale quraacda kale saa u jeedin intaanay ka kooban tahay geedkan saa u jeedin waa quraac fudud waaye maasha Allah borotiinkeeda waa 29% kaarabkeedana waa low saa u jeedin caleentana haddana isticmaalaa caleenta saa u jeedin waxay ka kooban tahay sinjibiil iyo huruud ka kooban tahay TMK lagu gadaa qofkii rabo tii hore ay idin tusaayin waxaa ka soo gaday Lidl-ka saan jeclahay marka quraacdan haddii aad u baahantiin waana borotiin waaye saa u jeedin low carb hoos ku taala saa u jeedin marka insha Allah ka faa'iideysta ayadana waxaa ka soo gatay Lidl-ka ka soo gatay marka insha Allah noocaas kalena wuu jiraa hoos ku qoran shukuleeda ku dhex jira noocaas ana marka kanaas ka soo qaatay aadoon iyo cajibiyay marka walaalay qaaliga saa u jeedin bakeeriya meeshaan aan soo dhigtay caleentii xabad ku ritay biyo kulul ku darsaday marka waa kana insha Allah ka faa'iideysta idin leeyahay caleemaha noocyadan oo kale oo dhan waxaa fiican inaad iska isticmaashaan oo aad gashataan booska qaxwada ama caleenta kale oo caadiga ah ku cabayseen inaad gashatiin haddana u jeedin quraacdeen ayaa kusoo shubanay marka wax yar loo baahan yahay oo qiyaas ah inaad kusoo shubato ana hadda waxaa ku cunaa yogurt dhanaan oo blend-ka ah waaye wax furuuda ma laho yogurt-kana u jeedin low waaye aad iyo aad u yar yahay faatkiisa
waa boqolkiiba maxay 0.1 waaye. marka intaan waxaa ka dhigan kartaa quraac ama casho. jooskaada iskale maanta waxaa waaye maalinkii quraacda iyo cashada. insha Allah qadada ayadana maalina kasoo dhiganaynaa. haddana saa ujeediin snack time aa la gaaray. marka maalinkeygii oo dhan boorasho waxaa isticmaalaya inta green tea igu jiro. kanna waa midkii maxay snack isticmaalaya boorash iyo malab oo ka samaysan yahay maasha Allah. aad iyo aad u fiican yahay. daarta guriga ku samaysan kartaa, hadaartin dukaanka ka soo gadan kartaa. marka 10 xabba ku jirtaa 5 xabba ku jiro, laakiin saxaanshadiiba 2 xabba ku dhex jirtaa. marka 10 xab saas uu ku yahay. waana boorash iyo malab aa laga sameeyay. marka insha Allah waxaa ka soo gatay aniga Cooflanka. marka adiga hadaa rabtid guriga ku samayso, haddii kalena soo jaayso soo gadan kartaa. lacagtiisana ma iska badno, waa yuuro iyo xoogaa waa wax 2 yuuro gaaraya ma ahan. marka waa kaasa meeshaan waxiisa dhan ay ku wada qoran yihiin faadkiisa. inta faado ku jirto faad waxa ma laho oo badan. maasha Allah aad iyo aad u macaan badan yahay. waana ka helaysaa dhowr nooc oo leeyahay saa ujeediin. dadka oo maxay sameynaa sportska isticmaali karo. waa wax natuuro waa kaasa ujeediin. marka insha Allah waxaan idin leeyahay ka faa'iideysta. intan waxaa kusoo samaystay saa ujeediin green tea-gii biyo kulul ku darsaday. xabadkan ahaa markaan cunaa 2 xabba igu jirto. haddii aa miisaanka aa dhimaysid 1 xabba waa cuni kartaa. ana alxamdulillah meeshii hadda aa u baahnaa waa joogaa. waa kana walaalay qaaliga gabadheeda furuusa gacmaheeda waa kan ha isdheena muneys gacanteeda yar badanaa. waa kana 2 xabba ku jirtaa sidaas oo noo eg yahay. kalarkiisa waa kaas 2 xabba ku dhex jirtana waa kaas. insha Allah ka faa'iideysta idin leeyahay. aad iyo aad horta u macaan badan yahay haddii aad soo tijaabisaan. mid waxaa jira maxay looska shiidan ama looska markaas oo sida shukulaatada oo kale asagana ku jiro. kaasna aad iyo aad u fiican yahay. snack-geenina inta uga baxnay. haddana marka waxaa guda galeynaa habeenkii inta aan seexanin ka hor waxaa cabi lahaa waay kan. meeshan saa ujeedin waxaa yaalo bakeeri jeex liin dhanaana. meeshaasna waxaa ku jira chai seed saa taqaaniinbo. chai seedka aad iyo aad u fiican yahay. wuxuu ka ilaalinaa inaad baahi badan aad dareentid. sidoo kale intana calooshaada mar walba waxaad dareemaysaa in ay dharagsan tahay dareemaysaa. marka insha Allah fitamiinaad badan wuu leeyahay. lafaagana wuu u fiican yahay. insha Allah ka faa'iideysta. asaga kaligiisa intaasoo fitamiino oo ka buuxaa. malayga fitamiinada ka heli lahayd ukunta caanaha intaasoo dhan chai seedku ku jiraa. marka waa kana qaandiira ku soo shubtay biyo. markaas hadda waxaa ku shubay oo qandacay waa biyaha ku shubay. marka waxaa sugaa wax yariis oo maxay 5 daqiiqo kale ah. markii xoogaa oo soo kuusto oo asagii oo dhan hoos u wada dego markaas cabaya waana seexanaa. habeenkii xitaa wuxuu ka saacidayaa dheefshiidkaaga inuu shaqeeyo. cuntadii jirkaaga ku hartay si markaas ay u shiidanto oo markaas jirkaaga uusan u keedsanin. taasoo ka saacidayaa. marka insha Allah ka faa'iideysta asagana. waxaa lagu darsadaa quraacda, waxaa lagu darsadaa smoothie-ga. kaligiisa waa la cabaa. marka sida adiga markaas jeceshahay aa u isticmaali kartaa. waa kaasay walaalay qaaliga ah. haddana meeshaas uga baxeynaa. waxaa kaloo samaysanaynaa quraac kalo ama qado. sida jeceshaa ka samaysan kartaa. tan waxay aad ugu fiican tahay aan ku jecelahay quraacda. waliba waxay aad ugu fiican tahay dadka markaas iskuulaadka aadaya ama subaxii baxay oo kale aan ka gaarin in wax ay samaystaan aad iyo aad ugu fiican tahay. marka insha Allah ka faa'iideysta idin leeyahay. meeshan saa ujeediin yogurt waaye 0.1 waaye. xitaa hal ma ahan faadka ku jiro. meeshaasna waxaa yaalo caanihii maandalka iyo maxay boorashka ahaa. meeshaasna waxaa yaalo maxay loos shiidan. looska oo shukulaatada laga sameeyo waa looskaas. kan almondiga oo weynka amaan kan shukulaatada laga sameeyo waa. intan waxaa igu jiro fruitska isku dardarka ah. jeex moos ah kusoo darsada ama jab moos ah. intana 3 qaando oo boorash ah waaye. kan waa caagadaha oo isku dhex jiro mid ka mid ah waaye. haddana waxaa kusoo darsanaynaa chai seedka. chai seedkana waa idin sheegay faa'iidooyin aad iyo aad u badan oo leeyahay.
haddana waxaa kusoo darsada qaandada yariiska ah oo heel shiidan waaye. heelkan wuu shiidan yahay insha allah. hadda kahor waa soo geliyey channelkayga xilli hore baakadiisa anoo idin tusaayo. markaan waxaa sameeya markaa soo gato meeshaasaa ku shubta. haddaa u baahantihiin insha allah waa idin soo sawira, waa idin soo raadinaa. marka waa kana walaalay qaaliga, hadda isku soo shiidanaynaa. quraacdan waxay kaa saacidaysaa maxay ahayto, waxay kaa saacidaysaa subaxii inaadan dab gelin, inaadan maxay ahayto waqti badan uusan kaa dhumin. waxaagan waxaa ku dhaa maasha allah si fudud aa ku samaysanaysaa. aad iyo aad u macaan badan yahay dhanaankiisa, dhanaan yar macaan yar uu leeyahay. marka insha allah ka faa'iidaysta. waana maxay ahayto quraac isku dheeli tiran oo fuul wax yar oo waxaa kusoo daray oo caana kusoo daray, wax yar ka dhinaysa arkaysaan. marka videogeeni meeshaas oo ka fadlan hadaa ka hesheen muuqaalka like saar, haddaan ugu cusubtaana subscribe, asxaabtaada usii share garay. intaa mid kale aan ku kulmi doono. assalaamu calaykum.